بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحلقتني لحد يبوغني New Concept English ka qaybtiisa koowaad First Things First waxay ka bilaabmaysaa casharka 37 bogga 37 lesson 73 page 73. dhammaan casharada kooraska afarta buug ee New Concept English oo dooban waxaad ka helaysaa kanaalka Wadsube qaybta playlistiga. haddii aad doonayso afarta buug ee New Concept English oo daabacan ayagoo original ah waxaad ka soo dalban kartaa nambarka kaga muuqda shaashada ayagoo lagugu soo diri doono delivery ama cargo meel aad joogtaba. waayahay waxaynu ku baranaa dhammaan falalka ama ficilada halkan ku yaala waa maadi. waxaad ogaataa sentence ingiriisigu ama fi luqa ingiriisiya يعني sentence ka ugu yari waxa uu leeyahay ficilka ka ugu yarna ha noqdee laasim waa inuu ficil ku jira markaas. waayahay lesson 73 last week weekii hore Mrs. Millis gabadha la yiraahdaa went to London bay tagtay. ذهبت to London. ذهبت Millis إلى London bay qabatay في الأسبوع الماضي أسبوعي hore. last week weekii hore Mrs. Millis gabadha la yiraahdaa went waxay tagtay to London. okay marka went halkay ka timi ficilka go la yiraahdo taqayir buuxa ayaa ku dhacay ama isbedel buuxa ayaa ku dhacay oo waa ficilada la yiraahdo irregular verbs. falalka irregular-ka maadigoodu siyaabo badan buu ku yimaadaa, qaar sidoodu baaqi ku ahaadaa oo waxa lagu daraa darfu samaan si loo garto, sida yesterday oo kale, last week oo kale ayaa lagu daraa si loo garto inuu maadi yahay. qaarna vowel change ayaa ku dhacay, isbedel xaraf oo ka dhexdun baa isbedela oo halkii kam ahayd keen bay noqotaa. marka qaarna taqayir buuxa ama isbedel buuxa ku dhaca sida go oo kale oo went bay noqotay. waayo markaas wuxuu last weekii hore Mrs. Millis gabadha la yiraahdaa went waxay aaday ama ay tagtay to London. she does not know haba yaraatee maba taqaano, yani markastoy tahayba weeyaan, markastoy tahayba. haddii laakiin berigaa laga hadlayay waxaa la odhanayaa she didn't know. marka she didn't know may garanayn London, magaalada London very well, si fiican may garanayn. halkaa didn't baynu odhanaynaa she didn't know may garanayn London, magaalada London very well, si fiican. okay and she lost her way dabadna way ambatay last week weekii hore Miss Millis gabadha la yiraahdaa went waxay qabatay to London, magaalada London. she does not know maba garanayso oo ma taqaana haba yaraatee London, magaalada London very well, si fiican. and she lost her way laakiin halkaa waxa ku haboonayd she didn't know, ilan berigaasay tagtee may garanayn London very well, si fiican may garanayn. and she lost way ka ambatay her way macnaa daacad can dariiqiha weeye, dariiqii bay ka lumtay weeyaan haddaynu lafti ahaan u macnayn, laakiin way ambatay weeye. suddenly markiiba ama fawran she saw waxay aragtay a man nin bay aragtay near meel u dhow bay ku aragtay a bus stop basasku halkay istaagaan. marka iyadoo nafteedii la hadlaysa oo erayadeedii lasoo qaatay ayaa waxa ay tiri I can ask him waan weydiin karaa daway dariiqa. I can ask him waan weydiin karaa daway dariiqa. she said to herself. waxay ku tiri to herself nafteedii. qofka markaad soo jeedinaysa la hadlayso dee sidan Soomaaliga iska odhan mayso saacadu waa imsadii, waxaad odhanaysaa excuse me, afwan bal iga raalli ah. she said ayay tiri can you tell me the way to King Street please? can you tell me ma ii sheegi kartaa the way dariiqa loo maro to King Street meesha la yidhaahdo please min fadlak. the man ninkii smiled wuu dhoolla cadeeyey pleasantly si qalbi furan oo mabsuuda ayuu dhoolla cadeeyey. smiled waa ibtasama rajulu yani mabsuudan. okay the man ninkii smiled wuu dhoolla cadeeyey pleasantly si mabsuuda. he did not understand ma kaana yafham muu fahmay. he did not understand ma fahima yani muu fahmin English luqadda ingiriisiga. he did not understand muu fahmayn English luqadda ingiriisiga. he spoke wuxuu ku hadlay German luqadda Jarmalka. speak bay ka timi. he was wuxuu ahaa
a tourist nin dalxiisa. He was wuxuu ahaa a tourist nin dalxiisa ayuu ahaa. Then he put his hand, dabeedna gacantiisa suma wadaca yadahu fi jaybihi sidaasay ka dhigan tahay. Then he put his hand, gacantiisii ayuu geliyey into his pocket jeebkiisa and took out wuxuu kala soo baxay and took out wuxuu ka soo saaray a Facebook. marka uu akhraja Facebook buu soo saaray buugga ismacnaynaya ee Ingiriisiga Jarmalka isku macnaynaya ayuu la soo baxay. He opened fataha the book buuggii buu kala furay. He opened the book buuggii buu furay and found suma wajada wuxuu ka helay a phrase macnaha jumlad ismacnaynaysa a phrase jumlad yar ismacnaynaysa ayuu helay. He read wuu akhriyay taa qiraa'ada isbedelaysa read bastaniskeeda qiraa'adun baa isbedesho read baa loo akhriyaya. He read the phrase jumladii buu akhriyay ama shibul jumlii buu akhriyay ama jumladu ee kihii ayuu akhriyay slowly si tartiiba. dabeedna muxuu yidhi he said qaala wuxuu yidhi I am sorry waan ka xumahay. I don't speak English. Ingiriisiga kuma hadlo. I don't speak English. Ingiriisiga kuma hadlo. Okay, he read the phrase slowly. Phrase-kii buu akhriyay. I'm sorry, he said. dabeedna wuxuu yidhi waan ka xumahay gabadh yahay. Ana aasif jiddan. I do not know. I do not speak kuma hadlo English luqadda Ingiriisiga. I do not speak haba yaraatee kuma hadlo English luqadda Ingiriisiga. halkaa waxaa inoogu eeg casharkii 37aad. bal aynu gudubno markaas lesson 74 on page 74 casharka 47 boggiisa 47. Okay, what did they do? ماذا فعلوا? maxay qabteen? ماذا فعلوا? maxay sameeyeen? What did they do? maxay sameeyeen? hadduu ficilku do yahay marka hore macnaha falka weyn ee meesha ku jira hadduu do yahay oo su'aal ay samaynayso dhidi kala loo qadimaya. dhidaasna waa eray su'aaleed oo waxay ka mid tahay afcaal naaqiska marna waa ficil buuxa do. kabrado fiirso wuxuu yidhi sorry waayahay he shaved wuxuu u xiirtay hurriedly si degdega this morning saaka and cut himself dabeedna wuu isjaray badly si xun. he shaved wuxuu garxiirtay hurriedly si degdega this morning saaka and cut himself badly si xun buu isu jaray. waayahay he took a cake xabad keeguu qaatay and ate wuu cunay it iyadii quickly si dhaqsaa. I gave him waxaan siiyey a glass of water koob biya and he drank wuxuu u cabay it koobkii wuxuu u cabay zestly si haraad ka muuqdo cadshaanan bay noqonaysaa. Okay, I met her waxaan kula kulmay in the street wadada the day before yesterday daraatoole manaa shalay maalintii ka horeysay and she greeted me waxay ii salaantay warmly si diiran. I met her waxaan kula kulmay in the street wadada the day before yesterday daraad and she greeted me waxay ii salaantay warmly si diiran. Okay, waayahay waa tahay aan ka gudubno markaas oo aan sii soconno. waayahay in the buski went slowly tartiib buu u tegay yesterday afternoon shalay galabnimadii and we arrived went wuxuu u socday slowly si tartiiba yesterday afternoon shalay galabnimadii and we arrived home gurigii waxaanu tagnay late goor dambe. waayahay they worked very hard si baan bay u shaqeeyeen this morning saaka. waayahay they worked hard aad bay u shaqeeyeen and they worked very hard aad bay u shaqeeyeen this morning saaka. waayahay okay we enjoyed ourselves waanu istareexnay very much aad iyo aad last night habeen hore. he swam wuu dabaashay very well si fiican buu u dabaashay this afternoon galabta. dhammaan ficiladaas waa maadi. su-aasha layna weydiina waxay ahayd what did they do? maada facaluu? maxay sameeyeen? markaas ficilada waxaan ku yidhi irregular iyo regular ayay isugu jiraan. regularku waa ka baaskiisa qaata ed ama d buu qaataa. okay, irregular verbiskuna waa ficilada isbedela ama faawal isbedelo ama sidooda baaqi ku ahaada ama akhrisku isbedelo. way exercise waa laylis look at this kuwan eeg. quick waa sariicun quicklyna waa sariican macnaha quick waa dhaqso badan quicklyna waa si dhaqso badan. zest waxweyn haraadan zestlyna waxweyn si haraad ka muuqdo.
careful waa taxadir badan, carefulna waa si taxadir badan. Look at this kuwa markaa fiiri oo buuxi. Wuxuu ku yidhi she smiled waxay u dhoolla cadaysay pleasantly si mabsuud ka muuqdo ama farxadi ka muuqato. Do this adna kuwanu sameyn the same way si lamida. He read the phrase-kii wuxuu akhriyay slowly si tartiiba ayuu akhriyay. Okay, he worked wuxuu u shaqeeyay lazily si kasal ka muuqdo ama caajis ka muuqdo. He cut himself wuxuu isu jaray ama naftiisa u gooyay badly si xun. He worked wuxuu u howlgalay carefully si taxadir badan. The door albaabkiina opened wuxuu u furmay suddenly si lama filaana. Waayo halka waxa inoogu dhamaaday casharkii 74aad aan ka socono aan u gudubno casharka 75 lesson 75 on page 75. waa muxadasa waxa ay inooga sheekeynaysaa ana wada hadalkan ama dialogue meesha ka muuqda waa gabadh wax ka iibsanaysa ana stationery ama kabaha meesha lagu iibiyo. waa shoe seller kii bay joogtaa. waxaan oran karnaa ciwaanku wuxuu noqon karayaa the shoe sellers kii kaba iibinayay. lady waa sayida ama marwaa soo gashay dukaanka waxay tidhi have you ma haysaa any shoes wax kaba like this oo kuwan oo kale ah. the salesman ninkii iibinaya yidhi what size numberka doonaysa waa maxay size qaadataa. waxay tidhi size 5 waxaan qaataa number 5. salesman kadana wuxuu what color midabma oo midabka doonaysa waa kee. dabna waxay tidhi black madow baan rabaa. salesman iibiyi baa yidhi I'm sorry aad baan uga xumahay we haven't any waxba kama hayno. dabadna gabadhu way u qaadan weydo waxay tidhi but my sister laakiin walaashay bood waxay ka iibsatay this bearkan last month bishii hore. wuxuu yidhi ma halkanay ka iibsatay. did she buy them here oo ma halkanay ka iibsatay. did she buy them here ma halkanay ka iibsatay. and gabadhu waxay tidhi no maya. she bought waxay ka iibsatay them iyaka in the USA United States of America in the United States of America ama الولايات المتحدة الأمريكية. okay markaas salesman kibaadi we are some shoes waxaanu haynay kabo like those kuwaas oo kala a month ago bishii ina dhaaftay but we haven't any laakiin waxba kama hayno now waqtigan xaadirka. gabadhu waxay tii beer ma ii heli kartaa. sidee loo oranayaa markaa can you get a bear for me please. can you get ma ii heli kartaa a bear ma ii heli kartaa for me aniga please mfadlak. salesman wuxuu yidhi I'm afraid wallahi waxaan ka cabsanayaa that I can't inaanan karin mana that I can't get a bear for you inaanan bear ku helin baan u malaynayaa buuri. I'm afraid waxaan ka cabsanayaa that I can't inaanan heli karin. they were waxay ahaayeen mana kabahan aanu haynaa ama aad ka hadlaysaa in fashion casrigii ama stylekii la xidhanayay last year sanadkii hore fashionkii sanadkii hore and the year iyo sanadkii before ka horeeyay lastkii dhamaaday. but they are not in fashion laakiin maaha casrigan maanta this year sanadkan. but they are not laakiin maaha in fashion kuwa socda this year sanadkan. these shoes kabahan gacanta ku hayo these shoes kabahan gacanta ku hayo are in fashion ayaa fashion na waqtigan xaadirka ah. gabadhu waxay tidhi they look waxay u eegyiin niyahow very uncomfortable qaaran raaxo lahayn oon cagta u macaaneyn bay u eegyihiin. they look waxay u muuqdaan very uncomfortable qaaran raaxo lahayn. salesman wuxuu yidhi they are very uncomfortable waa qaaran raaxo lahayn oon cagta u macaaneyn dhabahaan. but women laakiin dumarku always markastaba but women laakiin dumarku always goor la arko ama markasta wear waxay gashadaan uncomfortable shoes kaba bilaa naxariis oo dhaadheer oo cirib dheer oo cagta aan u macaaneyn oo qadhowda ahaya oo suuqa laga soo eegayo. okay waa tahay waxaynu ku baranay yani muxadasada ficilo badan oo maadiya oo baas ka sheekeynaya ama yani simple past tense ficil maadiga waxa loo yaqaano simple past tense
ficil maadiga kuwa loo yaqaana marka what is simple past tense oo maxaa tahay the simple past tense is the form of the verb waa shaqalka ficilka that denotes kutusa that an action in falkaasi ama hawsha la qabanayay finished ay dhamaatay completely gabi ahaan macna some time ago waqti ina dhaafay oo tagay ويل أن كل في مركز 10 كيشنة تطلع هالك أنا قدبنا 10 كليحية تدبعتن لسن 76 وعين 10 كليحية تطلع وعين كبرنا مركز this week مثلا وابشن أنا كترنا this month وعين this week وأسبوع أنا كترنا this month وابشن this year وصلنا كن okay last week وweek هره last month بيشي هره last year سنة كي هره the week before last weekii saddexaad ama weekii ka horeeyay kan the month before last bishii kan ka horeysay the year before last iyo sanadkii kan ka horeeyay oo kale okay baad u fiirso a minute ago waa daqiiqadiina dhaaftay an hour ago saacadiina dhaaftay a day ago maalintiina dhaaftay a week ago weekii tagay a month ago bishii tagtay a year ago sanadkii tagay okay 2 minutes ago labadii daqiiqeed tagay ama ina dhaafay 5 hours ago 5 saacayna dhaafay 3 days ago 3 maalmood ka hor ama 3 maalmood tagay 2 weeks ago 2 week ka hor okay 4 months ago 4 bilood ka hor iyo 6 years ago 6 sano ka hor okay balado fiirso ficilada meesha ku qoran dhammaan ficilada ku qoran waa maadi laakiin su'aasha markay sameynayaan sidee bay u sameynayaan idiidu dhammaan way ka go'aysaa waxa la odhanayaa when did you look goormaad eegtay halkaa when did you jump goormaad ka booday off the wall gidaarka when did you walk to the station goormaad u socotay saldhigga when did you wash goormaad maydhay your hands gamcahaaga when did you work goormaad ka shaqaysay at home guriga okay when did you ask questions goormaad su'aasha weydiisay when did you type goormaad garaacday letters waraaqa when did you watch goormaad daawatay telefisyoonka when did you talk goormaad la hadashay to your friend saaxiibka when did you thank goormaad u mahadnaqday to your teacher macalinkaaga when did you dust goormaad boardka ka tuntay the dressing table tawaleedka when did you paint goormaad rinjiga marisay and the bookcase mana khanada bugaagta when did you wait goormaad ku sugtay at the bus stop baska when did you want goormaad doontay to go inaad tagto iyo when did you greet goormaad salaantay him isaga dhammaan ficilada meesha ku yaala waa maadigaasoo weliba kuwaynu u bixinay regular verbiska dhammaantoodna waxay sheegeen wax tegay su-aasha markay samaynayaanna falku asalkiisii ama mujaradku ka yimi ayuu dib ugu noqonayaa idiidu way ka go'aysaa dhammaantood exercise waa laylis look at this one she goes to town every day maalin kasta suuqay tagtaa kaasi waa simple present tense waxaad u bedeshaa markaa simple past tense maadi u bedel waa present mar walba jooga waxaad u bedeshaa maadi tagay waxaan odhanayaa markaa she went waxay tagtay to town magaalada yesterday shalay markaa do u samee this kuwan in the same way si lamida she meets her friends asxaabteeday la kulantaa everyday maalin kasta waxaansa she met waxay la kulantay her friends asxaabteeda yesterday shalay okay they drink waxay cabaan some milk caano everyday maalin kasta vowel change baa ku dhacay marka maadi laga dhigayo ficilkaasi waxa la oranayaa they drank waxay cabeen some milk qadar caana everyday waxna yesterday shalay okay he swims ku dabaasha in the river wabiga everyday maalin kasta marka he swam ku dabaasha halka aydi waxay isu bedelaysaa eebay isu bedelaysaa estuna way go'aysaa waa tahay she takes him to schoolkay u qaada ama u kaxaysa everyday maalin kasta maxaa la odhanayaa markaa she took waxay u qaaday him isaga ama ay u kaxaysay to schoolkii yesterday shalay okay waa yahay brado fiirso he cuts himself wuu isjaraa every morning subax kasta marka he cut himself yesterday shalay buu isjaray ama last weekii hore estun baa ka go'aysa
falkaasi maadigiisu waa sidiisu baaqi ku ahaanaya akhriskuna isbedeli maayo laakiin inuu maadi yahay waxaa ku tusaya darfu zamaanka ama adverb of time waxaynu bixinay adverb of time ayaa ku tusaya halka waxaynu kaga gudbaynaa lesson 76 casharka 76 waxaynu u gudbaynaa lesson 77 casharka 77 ayaynu u gudbaynaa waa muxaadasa ama dialogue ka dhaxaysa laba qof waayahay labada qof waa kuwa markaas waa Mr Croft iyo gabadh neerasa Mr Croft waa nin buka ilig baa xanuunaya wuxuu u yimi markaa dentist qofkii dentist-ka buu yimi dabadna waa uu la hadlaya gabadhii neerasta ahayd ilaa sidana la isaga geli maayo badana okay inagu had iyo jeer waxaynu ka soo horjeednaa wixii sharci oo dhan ayaynu ka soo horjeednaa okay neeras gabadh neerasa ayaa la hadashay intuu galay odaygii Croft oo muxuu ku yiri markaa waxay ku tiri good morning sabaax al-khayr good morning sabaax al-khayr Mr Croft yo waa xasanow good morning sabaax al-khayr bay tiri Mr Croft baa markaa yiri good morning sabaax wanaagsan good morning sabaax wanaagsan nooras neerasay I want to waxaan rabaa to see inaan la kulmo the dentist dhakhtarkii ilkaha please min fadlak neerasta waxay ku tiri oo ma ballan baad la lahayd sidee loo odhanayaa markaas have you an appointment ma ballan baad la leedahay appointment waa ballan mawcid weeyaan marka yani have you an appointment ma ballan baad la lahayd have you ma waxaad la lahayd an appointment ballan to know I haven't wallahi inaan ma wax ballan ah ba yaraatee la lahayn arrinta ku haysa ma arrin degdeg ah bay tiri sidee loo odhanayaa markaas waxay tiri is it ma waxa weeye urgent wax degdega so yes it is waa arrin degdega it is very urgent aad bay u degdegtahay waliba I feel awful xanuun badan baan dareemayaa painful weeyaan awful haddaad maqasho waxa weeye painful bay la macnatay xanuun badan I have a terrible toothache ilka xanuun baan baa haya I have a terrible toothache ilka xanuun baan I have waxaan qabaa terrible toothache ilka xanuun baan marka baada toothache waa ilka xanuun terrible waa baan marka terrible waa sifo toothache waa ilka xanuun marka kelmadda ache marka gaar loo saaro waa xanuunka toothna waa ilka marka gabadhii neerasta waxay ku tiri can you come iman kartaa at 10 am macnaa 10 subaxnimo on Monday maalinta Isniinta April 24th 24 April markaasuu odaygii yaabo wuxuu yidhi Mr Croft baa yidhi I must see waa inaan la kulmaa the dentist now hadda neerasay marka gabadhii neerasta waxay tidhi the dentist is very busy at the moment the dentist dhakhtarkii ilku is very busy waa mashquul at the moment waqtigan xaadirka okay can you come at 2 p.m. labada galabnimo ma soo noqon karaysa labada galabnimo ma soo noqon karaysa bay tiri can you come iman karaysa at 2 p.m. labada galabnimo Mr Croft waxa tii markaas waxa uu yiri that is very late oo waa goor dambe taasiye that is very late waa goor dambe can't the dentist see me now can't miyaanu karayn the dentist dhakhtarka ilku see me now inuu hadda ila kulmo neerasta waxay ku tii markaas I'm afraid waxaan ka baqanayaa that he can't inaanu karayn Mr Croft yo can't you wait adigu miyaad sugi karin alaa tastadiic an tantadir miyaad sugi karin yaa till this afternoon ilaa galabta can't you wait miyaad sugi karin till ilaa maayo this afternoon galabnimadan Mr Croft wuxuu yidhi I can wait de anigu balaan sugabe I can wait waan sugi kara but my toothache can't laakiin ilka xanuunku igu sii maayo marka ilka xanuunkii baa dee ka adkaaday ninkii wuxuu leeyahay dee ilka xanuunkaan igu simayne waaban sugi lahaa buu yidhi waaban sugi lahaa okay waa tahay aynu ka gudubno markaas casharka lesson 77 oo aynu u gudubno markaas lesson 78 dhakhtarka markaad booqanayso oo kale waxyaabaha sidii aad ku odhan lahayd oo kale weeye markaas casharkeenna 77 iyo lesson 78 oo soo socda xidhiidh ayay leeyihiin dhammaantood waxaa lagu baranaya wax tegey
هي اللي قبرني أوكي وياهي إلا 10 كورية 76 يعني في الماضي بكشيكيني أما باستنس بكشيكيني وإلا سنة 78 on page 78 وعاشر كستيجة تتباتنات أو كيالا بوغا سيجادية تتبات when did you go قرما تكتي to school كي أو كالي كم هذا رن لايد مركز I went to وحن تجي to school كي at 1 o'clock كودي at 1 o'clock كودي at 5 at 2 معنا مركز at مثلا 2 at 5 past 2 لبدي يشن at 2 past at 3 past 10 at 3 at 10 past 3 at 10 past 3 at 10 past 3 معناه مركز 3 دي دافتي 8 دقيقة أما at محاولنا I went وحن تجي to school كي at quarter past 4 at quarter past 4 أفرتي الربع أما وحنا I come home قرية وحنمي at 5 at 20 past 5 at 20 past 5 أما وحنا at half past 5 شنتي يبركي أما وحنا at 8 o'clock at 8 أما at half past 8 at half past 8 ساعات مركي وحدة أفتح الاستعمالية باست مركي وحدة توبة الاستعمالية marka hadii labadii oo toban la sidoo oranaysa at 2 to 10 at 2 wala at 10 to 2 at 10 to 2 saacada markasta waxa ka horeynaya at halka waxaan joogay at 7 o'clock ama at 1 o'clock at 5 past 2 at quarter past 2 ama past 3 saddexdii rubuc labadii iyo toban saacadu waa sidaas okay halka waxaan tagay baad leedahay marka on Sunday axadii أما on Monday اثنينتي أما on Tuesday ثلاثة أما on Wednesday أربعة أما on Thursday خميستي on Friday جمعه on Saturday سبتدي on Saturday سبتدي هدي عاد بلتكتي وهالك بيشة جوكتي when did you go to school okay وحن تيجي مركز أما عن شوقي school كي in January بلي أوردن وحراعية in haddaanay taariikhdu daba dhicin laakiin markay taariikhdu bisha daba dhacdo on baa ka horeynaysa laakiin haddii bisha qaawan tahay waxa raacaysa in January in February in March in April in May in June in July in August in September in October in November in December sanadkii markuu yani sanadkii 20 sanadkii 3 oo kale markaynu isticmaalayna intaas la isticmaalaya maxaa loo markaa in 1950 in 1960 in 1961 in 1962 in 1963 in 1964 in 1965 in 1966 in 1967 in 1968 okay waayahay laakiin taariikhda markay bishu ka dambayso sidee loo oranayaa on Palestine July 1st kowdii July August 2nd ama on August 2nd labadii August on September 3rd saddexdii September on October 4th ama on 4th October afartii October on 5th November shantii November on 6th December lixdii December marka saacadii aad baraacaysa maalmihii on baraacaysa bishu haday marantay oo taariikh la socon in baraacaysa sanadkii oo dhan in baa ka horeynaysa hadii taariikhdu ay bisha ka dambaysana on baraacaysa exercise or ladies wuxuu ku look at this confiri okay she goes to town every day maalin kasta waxay tagtaa suuqa she went to town yesterday shalay suuqa ay tagtay marka macnaha waa every day ama waa simple present tense waxaad ka dhigtaa maxaad ka dhigaysaa markaas simple past tense do this kuwan u qabo ama uga shaqee in the same way lamida do uga shaqee this kuwan in the same way lamida he okay waayay he buys wuxuu iibsadaa a new car sanad cusub every year sanad kasta he bought wuxuu iibsaday a new car baabuur cusub last year sanadkii hore she airs the room qolka hawada u sii daysaa every day maalin kasta laakiin markaad baas ka dhigaysa waxaa she aired
waxay hawada u sii daysay it macnaha gurigii this morning saaka. He often inta badan loses waa uu tuuraa oo waa lumiyaa his pen qalinkiisa. He lost waa uu tuuray his pen qalinkiisa this morning saaka. Okay, he always markasta listens wuxuu dhageystaa to the news warka. He always markasta listens wuxuu dhageystaa to the news warka. He listened wuxuu dhageystay to the news warkii yesterday shalay. She empties waxay faaruqisaa the basket kolayga every day maalin kasta. She emptied it. She emptied waxay marisay oo faaruqisay it kolaygii yesterday shalay. casharkii 87 halkaas ayuu inoo joogayaa. aynu gudubno markaas casharka 79 lesson 79 page 79. waayahay waa dialogue dhex maraya ninka Tom la yiraahdo iyo ninka la yiraahdo Peggy ayaa la yiraahdaa iyo Tom. way markaas what are you doing Peggy oo maxaad qabanaysaa? What are you doing Peggy oo maxaad qabanaysaa? What are you doing maxaad qabanaysaa Peggy ka Peggy waxa uu yidhi I'm making waxaan samaynayaa a shopping list. dukaanka waxyaabihii u baahnaa ama liistadii dukaanka wax soo iibsashada. Tomow I'm making waxaan samaynayaa shopping list liistadii dukaanka. Tomow Tom baa markaa yidhi what do we need oo maxaynu u baahannahay? What do we need maxaynu u baahannahay? ka Peggy waxa uu leeyahay we need waxaynu u baahannahay a lot of things ashyaa fara badan this weekend. marka ugu horeysa waxa uu leeyahay Peggy I must go. marka hore waa inaan aadaa waa inaan tagaa to the grocery store shariga. we haven't got ma haysano much tea shaah fara badan or coffee ama bun fara badan. I must go waa inaan tagaa to the grocery store shariga. we haven't got ma haysano much tea shaah fara badan or coffee ama bun. haven't got da waa iska dayn kartaa got oo waxaan kartaa we haven't kaliya. it is enough to say way kugu filantay inaad tiado we haven't any tea. marka any baa soo galaysa laakiin god markay soo gasho there is no need for any. kelmadda any la yiraahdo looma baahna. we haven't got ma haysano much tea shaah fara badan or coffee ama fara badan. and we haven't got ma haysano any sugar wax sugara ama sonkora or jam ama jamkii roodhida la marinayay. and we haven't got ma haysano any sugar wax sonkora or jam ama baalkan jamka la yiraahdo. waayahay okay Tom baa markaa yidhi what about vegetables? what about bal ka waran? what about bal waxaad ka warantaa vegetables khudrawaadkii cagaarnaa sida saladkii iyo cabbage iyo tamaandhada iyo waxyaabaha noocaasa ayaa vegetables la yidhaha. vegetables waa macnaha khudrawaad kuwa sidooda loo cuno ee la yidhaha fruities waxa la yidhaha fawaaki. okay what about bal ka waran vegetables khudrawaadkii cagaarnaa? Peggy baa yidhi I must go waa igu qasab inaan tago. I must go waa inaan tagaa to the green groceries khudradlaha. I must go waa inaan tagaa to the green groceries khudradlaha. we haven't got ma haysano many tomatoes tamaandho fara badan but laakiin we've got waxaynu haysanaa we have marka la soo gaabiyo we've baa loo akhriyayaa. we've got waxaynu haysanaa a lot of potatoes baradhaadu badan. okay Peggy wuxuu yidhi I must go waa inaan tagaa to the butcheries hiliblaha too. sidoo kale I must go waa inaan aadaa to the butcheries hiliblaha too. sidoo kale we need waxaynu u baahannahay some meat waxoogaa hiliba. we haven't got any meat at all way haba yaraatee ma haysano xiliba. we haven't got ma haysano any meat wax xiliba at all haba yaraatee. okay Tom bay markaa have we got any beer and wine? oo khamriga iyo biri miyaynu haysanaa? sidaan kuu sheegay sharaabkooda weeye. wuxuu leeyahay markaa have we got miyaynu haysanaa any beer wax biira and wine iyo khamriga? so no maya we haven't ma haysano. marka anigu we are not going to urge or encourage to drink wine and beer. ma dhiirigelin inaynu cabno khamriga waa inaga xaaraan iyo biiruuba
laakiin iga sharaabkoodu ka mid yahay marka la soco no we haven't ma haysana buu yidhi and I'm not going to get any inaan soo qaadana ma rabo and I'm not going mana qastiin oo maankayga kuma hayo to get any inaan soo qaado wax and I'm not going to get any inaan soo qaadana yani ma rabo marka Tom Brady I hope waxaan rajaynaya waxaan filayaa that you've got some money inaad qadar lacag hayso I hope waxaan filayaa that you've got inaad hayso some money qadar lacag I hope waxaan rajaynayaa that you've got inaad haysato some money qadar lacag marka you've waa you have oo la soo gaabiyey beg wuxuu yidhi I haven't got much wallahi ma haysto yani waxba lacag badan ma haysto I haven't got much wax badan ma haysto Tom Brady waa buu la yaabo well I haven't got much either ana sidoo kale ma haysto I haven't got much wax badan either midkoodna yani mid yar iyo mid badan toona anigu ma haysto mid yar iyo mid badan toona anigu ma haysto buuri waayahay halkaa waxay inoogu dhammaaday casharkii 79 muxaadasadii dhex martay macnaha ninka la dhaha Becky iyo ninka la dhaha Tom oo dukaanka alaabta loo soo iibinayay ayuu ka sheekeynay markaas okay waxaan la isticmaalay markaas kelmadda must la yiraahdo oo sheegaysa waajib meesha inaad qabato inaad waxa qabataa waxay sheegaysaa compulsory obligation waajib qasaba waaye aan gudub markaa lesson 8 casharka 8aad lesson 80 waxaan casharka 8aad I must go to the groceries when I'm boshariga tagaa limaada maxaad tagaysaa to get aan soo qaado some groceries waxoogii alaabtii bosharigu iibinayay groceries ka waxa la dhahaa waxyaabihii dhammaay u iibinayay dukaanka grocerku ayaa groceries la yiraahdaa okay مثلا waxa kamida markaa cheese burcadki construction kan uu sameeynaya waxa loo dhisayaa I must go inaan tagaa so groceries boshariga to get aan soo qaado some groceries waxoogaa alaabtii u iibinayay nuqdatayn fooq albacd ayaad qoraysaa ama waxa la dhahaa colon baad hor dhigaysaa dabeedna waxa cheese waa burcadki eggs waa beedki and butter waa butterka roodhida la mariyo okay honey waa malabki jam waa jamkii roodhida la marinayay biscuits waa biscuits waa weyn biscuitki I must go waa inaan sidoo kale tagaa to the green groceries khudradlaha to get si aan soo qaado some fruit waxoogaa fawaakiha ama khudradda sida loo cuno and vegetables iyo kuwa dabka gala ama la kariyo oo kale maxaa kamid markaa noqoteen fooq albacd column baad dhigaysaa waa weyn mesela pears balka arad balada suugada lagu darsado orange waa liin macaan bananas waa muuski beans waa weyn baashan digirta ee atarka leedah peas waa atarki beans waa weyn macaan digirta peas waa weyn atarki cabbage waa cabbage okay I must go inaan tagaa to the butcher's libla to get si aan soo qaado some meat waxoogaa hilib marka hilibkii noocyo badan buu yeelanayaa maxaa kamid lamb hilib adhigi beef waa hilib lo'aadki steak waa hilibkii saafka ahaa okay minis waa duqadii suugada lagu darsanayay chicken waa digaagii I must go inaan tagaa to the stationaries dukaanka qalabka qoraalka to get si aan soo qaado some stationery waxoogaa stationery waa qalabkii qoraalka oo dhan nuqdatayn fooq albacd ayaad qoraysaa ama colon baa la yidhaha ingiriisiga maxaa kamida markaas stationarieskii inki baa kamida oo khadkiiya glue xabagtii okay envelopes galalkii writing paper waraaqii wax lagu qoraya bayaada ahaa waxaa kaloo kamida I must go inaan tago news agencies ka wararka iibiya ama wakiilkii wararka to get si aan soo qaado some newspapers waxoogaa jaraa'ida some magazines waxoogaa majallada marka maxay ku kala duwan yihiin newspaper iyo magazine waxay soo baxdaa 3 bilood ama 2 bilood tan waxay soo baxaysaa maalin kasta ama week kasta newspaperku weekii ama maalintii soo baxaya waxa iyaduna ku xigta I must go inaan tagaa bakeries roodila to get si aan soo qaado some bread waxoogaa roodhiya ama some cakes waxoogaa keega I must go inaan sidoo kale tagaa tobacconists wax buurilaha to get si aan soo qaado some cigarettes waxoogaa sigaara I'm not going to encourage you inaan kugu dhiirigeliyo ma rabo to smoke cigarettes and tobacco inaad buurigeed waa kada cabto okay
it's completely forbidden waa mamnuuc marka wuxuu yiri I must go waa inaan tagaa tobacconist ana buuriga kaybiya to get some cigarettes aan waxoogaa siyaaro u keeno ama some tobacco waxoogaa buuriya ama some okay way tobacco iyo cigarettes it is completely forbidden macnaha waa la mamnuucay I must go waa inaan tagaa tobacconist farmasila waa inaan tagaa to get some aspirin si aan waxoogaa aspirin u soo qaado ama some medicine waxoogaa daawo constructionku markaa muxuu noqonayaa ama tarkiibtu maxay noqonaysaa I must go waa inaan tagaa to the groceries boshariidaha to get si aan u soo qaado sababyo weeyaan to get waa weeyaan likay oo kale ka dhigan tahay likay si aan u soo qaado waayahay look at this one egg I haven't any eggs bread ma haysto I haven't got many eggs for us bread badan ma haysto he hasn't any coffee bun ma hayo wax buna he hasn't got much coffee marka halka waxaad ku bedeshaa got halka any ay ku jirto waxaad ku bedelaysaa macnaha money iyo much oo maxay ku kala duwan labaduba badnaan laakiin money wixii tirsamay raacaysa muchna wixii aan tirsamayn bay raacaysa okay do this kuwan u sameyn the same way silamida I haven't any butter wax butter ma hayo maxaad oranaysaa markaas I haven't got much butter badan ma hayo you haven't ma haysatid any secrets wax sigaara maxaad oranaysaa you haven't got many secrets sigaar badan ma haysatid we haven't any milk wax caana ma haysano maxaad oranaysaa markaas we haven't got much milk okay she hasn't any biscuits wax buskula ma haysato she hasn't got ma haysato many biscuits biscuit waxoogaa fara badan okay wuxuu ku yiri markaas okay they haven't ma haystaan any stationery because I'm they haven't got many stationaries stationery kala duwanaa ma haystaan okay waa hagaag halka waxay noo joogay markaa 10ka 8aad waxaynu gudbi doonaa 10ka 11 ama lesson 81 10ka 11 10ka ninkii bagi baa ina daba socda iyo ninkii macnaha la oran jiray John iyo bagi ayaa ina daba socda lesson 81 on page 81 waa 10ka 11 boga 11aad John baa bagi la hadlaya wuxuu leeyahay hello bagi nabaday bagi where is Tom ninkii Tom la oran jiray saaxiibka ahayn xaguu ku dambeeyay ka bagi baa yiri he is upstairs wallahi salaanka sare ama kor salaanka ayuu jira he is upstairs kor ayuu jira he is having a bath umaydhanaya hafintaas waxay ka dhigan tahay is taking a bath maydhasha ayuu qaadanaya ama qubays ayuu qaadanaya ka doontaba dheh he is having a bath umaydhanaya ama bath saaba la akhriyay halkaas bagi Tom wariya Tom badi yes haye asui John is here John wakande asui I'm nearly ready diyaar baan ahay the Tom baa oranaya I'm nearly ready taqriiban ama ugu dhawaan diyaar waa ahay okay Tom baa markaa hadlayo wuxuu hello John bal waran hello John nabaday John have a cigarette habad sigaar ku dhufo have a cigarette buu leeyahay habad sigaar ku dhufo malihi sigaarka cabba malihi anigu oo idinku dhiiri galmay sigaarka inay cabtaan waxaan jeclaan lahaa sigaarka cidii cabtay inay iska dayso way anigana ku dhaho marka in la iska daayo ayaa fiican have a cigarette habad sigaar ku dhufo John by no thank you Tom wallahi me Tom waad maasan tahay have a glass of whiskey then bal ka waran koob khamri ah ka khamrigu waa sharaabkooda laakiin inagu mana daybaadkaynu cabaynaa sharaabkana caadiga aynu cabaynaa camba iyo liinta aynu cabaynaa halkaas have a glass of whiskey then war glass whiskey ku dhufo buu markaas sidoo okay thank you waa hagaag okay waa all correct way ka dhigan tahay okay macnaheedu waa all correct wuxuu markaa okay waa hagaag thanks so much on time Tom Brady is dinner ready Baggy
is dinner ready warcashadii diyaar ma tahay baggy kelmadda dinner la yiraahdaa lunchna waa la macno sabarna waa la macno wuxuu yiri markaas is dinner ready cashadii diyaar ma tahay baggy waxa uu leeyahay markaas it is nearly ready taqriiban waa diyaar way iska dhadhowdahay we can have dinner waxaynu cashayn karnaa we can have dinner cashada waxaynu cuni karnaa at 7 o'clock todobada marka Tom baa yidhi John and I war aniga John had lunch waanu soo qadaynay together si wada jira today maanta we went waxaanu tagnay to a restaurant hotel baanu tagnay restaurant waxa la yiraahdaa hotelka laga cunteeyo Baggy baa yidhi what did you have oo maxaa cunteen what did you have maxaa cunteen Tom baa yidhi we had waxaanu cunay roast beef hilib lo'aad la shiilay roast beef hilib lo'aad la shiilay and potatoes iyo baradho shiilan Baggy markaa uu yaabo wuxuu yidhi Tom baa yidhi what's the matter Baggy oo maxaa dhacay ama what's wrong Baggy oo maxaa dhacay ama what happened Baggy oo maxaa dhacay ama what's up Baggy oo maxaa dhacay marka Baggy baa yidhi well you are going to have iminkana waxa maanka ku haysan inaa cuntaan you are going to have waxa qasdideen in hadana soo qaadataan roast beef hilib lo'aadka shiilan and potatoes iyo baradhada again mar labaad tonight hour okay waayahay waa muxaadisad dhex martay Baggy iyo John iyo Tom oo saddexa waayahay John and I aniga John had lunch together waan ka soo wada qadaynay today maanta marka qofka iyo marka adiga qof kale israacaysaan waxaad ka fahmaysaa qofka kale ka horeynay marka isku cadfayso ama la isku xirayo macnaha laba sentence oo adiga qof kale ah qofka kale ka horeynaya Maxamed and I aniga Maxamed Xasan and I aniga Xasan sidaas oo kale oranaya waayahay lesson 82 وعشرك اللي 8 maadaama uu noo dhamaaday casharkii 8 waxaynu u gudbinaa casharka 8 I had waan qaatay way I had hadana xagee ka timi waad soo diin kartaa waxaynu ku soo jirnay simple past tense ka past tense ka have iyo has waxa uu noqonayaa had macnayaasha waxa xukumaya object-ga ama mafcuulka ka dambeeya ayaa xukumaya haddaad مثلا leedahay I had lunch dadaan cunabay noqonaysa I had a cup of tea koob shaahan cabay noqonaysa markasta waxa xukumaya wixii ka dambeeya marka kelmadda have la yiraahdo ama had la yiraahdaa waxay la macno tahay drink eat receive oo helitaankii xasaltu risaalatan min akhi oo kala dad leedahay waxay oran kartaa mubaax inaad tiraahdo I had a letter from my brother I had a letter waraqban ka helay from my brother walaalkay that's correct English mana Ingiriisiga saxda marka qaar kood sida waa loo dhihi karaa ama waa loo oran karaa مثلا oo kale hadani waxay ka dhigan tahay I had breakfast quraacdi baan cunay I had lunch qadadii baan cunay I had tea shaah baan cabay I had dinner cashadii baan cunay at 7 o'clock todobadii at 4 o'clock afartii shaahan qaatay at 2 o'clock labadii qadadaan cunay sideedii oo rubuc lana ama quarter to 8 na waxaan qaatay breakfast quraacdi I had a meal mana cuntaan qaatay meal waa cunta waa food bay ka dhigan tahay I had a swim dabal baan qaatay sabaaxa okay I had a bath qubays baan qaatay ama maydhasha ayaan qaatay I had a haircut waan timahan iska soo jaray I had a haircut timaha ayaan soo jaray weeye okay I had a lesson 10 baan u dhiganay I had waxaan dhigtay a lesson 10 I had a party xaflad party ayaan ku istireexay oo waqti fiican ku qaatay I had a holiday fasax baan qaatay I had a good time waan soo istireexay mana waqti fiican oo heer sare ayaan soo qaatay buu leeyahay marka dhamaan haddaas waxay ka timi halkay ka timi have iyo has asalkeedu waa have past tense-keeduna wuxuu noqonayaa ama ficil maadigeeduna had ayuu noqonayaa waayahay exercise waa laylis markaas
exercise waa laylis. Look at fiiri this tusaalahan. I had a cup of coffee. Marka waxay ka dhigan tahay I drank waxaan cabbay a cup of coffee koob buna. Marka wuxuu ku yidhi do this kuwan u qabo oo uga shaqayn the same way si lamida. Putting waxaad ku buuxisaa drank oo cabitaankiya. Enjoy oo istareexa yourself naftaada aad u istareexayso. Enjoy yourself inaad naftaada u raaxaysay. Are eating cunaya ku buuxi. Went for u baxay. مثلا kale 8 cunay or take inta midkood ku buuxi. Laado fiirso they had a meal at the restaurant. Hotel bay ka qadeeyeen. Kamaasa they ate waxay ka cuneen. They ate waxay ka cuneen a meal cunto at the restaurant hotel. Okay, we had a holiday last month. We had waxaanu qaadanay a holiday fasax last month bishii hore. Kama hadalnaysa markaas we enjoyed, yeah. We went for waxaanu u baxnay a holiday fasax last month bishii hore. Wait, what else? Have a cigarette waxay ka dhigan tahay have a cigarette xabad sigaar qaado. Marka waxay ka dhigan tahay maxaa oranaysaa markaas yani take a cigarette oo kale. Take a cigarette xabad sigaar qaado. Okay, you had a good time. Waxay ka dhigan tahay you enjoyed yourself. Waad soo istiraahday. You enjoyed yourself. Okay, they are having their lunch. Waxay ka dhigan tahay they are eating their lunch. Qadadii bay cunayaan. Okay, I had a glass of milk. Kubaayad caana baan cabbay. Waxay ka dhigan tahay I drank waxaan cabbay a glass bacteria of milk caana. Marka waxa xukumaya haadaas يعني waxa ka dambeeya ama object ka dambeeya haduu cabitaan yahay haduu cunitaan yahay haduu istiraah yahay waxa xukumaya waxa ka dambeeya waa yahay halka hadaynu kaga soo yara baxnay mana baastiniski oo kale oo lesson 82 aha waxaynu u gudbinaa lesson 83 waxaynu ku baranaynaa tenniska loo yaqaano present perfect tennis. Present perfect tennis waxa weeye macnihiisu wax tagay hadana jooga. Waxa laga yaabaa dadku inay isweydiiyo war wax tagay oo jooga waa maxay macnaheedu? Macnaha falki waa dhamaaday laakiin taasiirkii uu ka tagay ama raadkii uu ka tagay waa taagan yahay ayay ka dhigan tahay. Ama intuu bari hore soo bilaabmay ayuu ilaa hadana socdaa. For example imika Hargeysa waynu joognay wali waa joognaa horena waa soo joognay marka sidaas oo kale ka hadlayso waxaad leedahay yani I have lived here halkan waxaan ku noolaa since 1970 ilaa 1970 and up to now I'm living here walina halkan aan ku noolaa. Marka present perfect tense waxa it means present perfect tense. Markaynu ka hadlayno the present perfect tense means macnihiisu waxa weeye it indicates inuu muujinayo ama the form of the verb waa shakliga ficilka that denotes kutusa ama indicates kutusa that an action in falkaasi have just finished uu hadda u dhamaaday and it is effects raadkii ama taasiirkina are still remaining wali ay baaqi yihiin. ama oran kartaa an action hawl ama ficil that has started so bilaabmay some time ago very hore and still continuing illa haddana socda. Okay, waa yahay and brother let us lesson 83 on page 83 waa casharka 3 ee ku yaala bogga 3 marka John iyo Becky iyo Tomkii aynu soo dhiganay ayaa waliina daba socda. waa yahay wuxuu yiri marka hello John nabada John come in soo gal ka gurigii soo gal bay ka dhigan tahay gurigii uu galay markaas Tom wuxuu yiri hello John nabada John hello John nabada John we are having lunch waa qadaynayna marka we are eating lunch bay ka dhigan tahay. do you want marabta to have lunch with us anta taqaddam معنا inaad nala qadayso marabta marka tudaasi waa an oo kale an oo ficlu nasbigiya ama adawaatu nasbigi oo kale ah. do you want marabta to have lunch with us inaad nala qadayso ka John by no thank you Tom ma Tom waad maadsan tahay no maya
thank you waad maasantay tomtomow. I've already had lunch. Anigu mar horeba waan soo qaday. Masalan saaxiibka waxaad ku tidhi have a seat here, halkan iska fadhiiso and drink 1 cup of tea, koob shaah cab. Dadna wuxuu ku yidhi I have just had a cup of tea, war haddan koob shaah cabay, so I don't want to drink it. Marka hadda uma baahan inaan cabo, taasoo kale waa in badan bay markaas shaah cab, may wallahi waan cabay raallahu. Wuxuu yidhi markaas no thank you Tom, may Tom waad mahadsan tahay. I've already had, anigu mar horeba waan soo cabay ama soo cunay lunch qadadii. I had lunch, waliba waxaan ka qadeeyay at 12:30. I had lunch, waxaan qadeeyay at 12:30, 12 barkii. At 12:30, 12 barkii. Kabagi baa saaxiibkiisa ku raali gelinaya ayaa waxa uu leeyahay have a cup of coffee then. Marka koobuna bal ku dhufo. Dadna John Bailey I have just had, haddan ku soo dhuftay a cup koob. Thank you waad mahadsantahay. I have just had a cup, haddan koob soo cabay. Thank you waad mahadsantahay. I had one, mid baan ku dhuftay. I had one, mid koobaan ku dhuftay waan soo cabay after my lunch, qadada kadib. After my lunch, harimadaydi kadib ama qadadii kadib. Awaaye Tom baa markaa yidhi let us go into the living room Baggy, bal aynu iska galno markaa qurfatul aish ama qurfada ama qolka raaxada ina geli buu markaas let us go into an iska galno the living room qolka istiraxa ee nasashada. Baggy we can have our coffee there. We can have waxaan ku cabi karnaa our coffee bunkeena there halka. We can have our coffee there bunkeena halkaas aynu ku cabi karnaa. Baggy baa yidhi excuse the mess John, excuse naga cafi oo ka raali ahow the mess isdhexdaadsanaanta Johnow. kelmadda mess la yidhaahdaa dirt waa wasakhi way noqon kartaa. macnaha masalan oo kale waxay noqon kartaa untidiness ama isdhexdaadsanaan iyo isdhexyaal fara badan ay noqon kartaa. mess haddii la yidhaha officers messna waa miiska saraakiisha. excuse the mess bal naga cafi markaas oo ka raali ahow isdhexdaadsanaanta Johnow. This room is qolkani very untidy waa mid bilaa tartiiba oo isdhexdaadsan. Okay, we are packing our suitcases, waxaanu xidhxidhaynaa our suitcases shandadahayagii. We are packing waxaanu xidhxidhanaynaa our suitcases shandadahayagii. We are going to leave tomorrow, bari baanu anbabaxaynaa. We are going to leave, waxaanu maanka ku haynaa inaanu anbabaxno tomorrow baritoole. Tom and I aniyo Tom are going to have a holiday, fasax baanu qaadanaynaa. Are going to have waxaanu maanka ku haynaa inaanu qaadano a holiday fasax. Tom and I are going to have a holiday, fasax ayaanu tegaynaa. John Bailey aren't you lucky? alla yaa xusni xadakum maxaa idinka nasiib badan wayaa xusni xadikum maxaa idinka nasiib badan weeyaan alla nasiib badidin. Aren't you lucky? maxaa idinka nasiib badan. Tom Bailey when are you going to have a holiday John? When are you going to have a holiday John? John goorma fasax tagaysaa? John wuxuu I don't know, wallahi aanan garanayn baanigu. I don't know ma garanayo baanigu gooraanu fasax tagayno. I don't know ma garanayo Johnow. Okay, I've already had, anigu mar horeba waan soo qaatay my holiday fasaxaygii this year sanadkan. I've already had waan soo qaatay my holiday fasaxaygii this year sanadkan. Baggy waxa uu yidhi markaas where did you go? oo niyo haddaad soo qaadatay xaggeed qabatay markaas eed u fasax tagtay? So I stayed at home. Dee gurigaygaan iska joogay. I stayed at home. Gurigaan iska joogay. I stayed at home. wallahi gurigaan iska joogay buuri. markaas waxaynu ku soo barannay ficil la yidhaahdo present perfect tense. present perfect tense-ku waxaa lagu sameeyaa ama yacni uu ka unkamayaa have ama has iyo falka qayb ka mida oo la yidhaahdo past participle oo inta badan la mid tahay siiqada baaska ayay la mid tahay. Have you had ma qaadatay halkaa maxaa la dhigaya? Have you had miyaad qaadatay bananas? Have you had fruit? miyaad khudrawaad iyo fawaaki aad cuntay?
فواكه وعلى إذا وحسيدو الله عنه ويهي. Have you had lesson 84 10 كافريستيتن وحسي سودا تنس كأنه كوشيغني present perfect tense. Have you had مياد قادتي fruit أنا fruitسكي أما فواكه أما خضروات كسيدو الله عنه ستموس كيحي لها المالة. Have you had bananas موس مياد قادتي. Have you had oranges لين معان مياد قادتي. Have you had peaches. Have you had peaches عنبرود كبالغ لها مياد قادتي. Have you had apples تفاح كورن مياد قادتي واي كواني وحاوية مركز. Have you had مياد قادتي vegetables خضروات كعقارن سيدا مثلا كابج كو كالي تماندد oo kale baradhada oo kale waxyaabaha la kariyo dabka gala ayaa badan ay u badan yihiin. Have you had lettuce baashan ay dhacayada oo kale ayaa la lettuce ama خوخ wala خوخ باللغة العربية. Okay. Have you had cabbage مياد cuntay. Okay. Have you had مياد qaatay peas baalka la dhaca atarka. Have you had beans digirtiyada مياد cuntay. Have you had مياد qaatay معناه ميل عنتو beef هلب لوعات لام هلب عري steak وهلب كساف كها chicken وهلب دجاجي. Have you had milk أنا مياد عبتي. Have you had tea شام مياد عبتي. Have you had coffee بن مياد عبتي. Have you had مياد عبتي wine خمري إنكم معبنو we don't drink wine خمري معبنو since we are Muslims ما دام إننا هيدا مسلمة and I'm not going to encourage you كوغونا ليري قلينيو لكن just a word إرجع ماشي كوكرم بيخرينا. Have you had wine مياد wine كعبتي خمريجا. Have you had beer بالك beer كذا ميرابتي. Okay beer كي wine ولا بنوع خمريجا كwine هو خمريجي ودن beer هو قار كمذا. Okay وهي هاي وحنا دمان تود كشكينسا. Have you had have تسوى سمينيسي تنسك وها فيها سبال وسمية وانكول تنس كلام السمن كان وعوكشة كينيا فال إمي كدماضي لكن راد كيسي قوين يحي أما وحبره رصوب بلا مي إلا هدنا سعودة. أوكي ويحي exercise والليلس exercise وين ليلس. have some coffee. look at this بالليلس كأيك بكوري headline كا have some coffee وحوغا بنا كدفو. have some coffee وحوغا بنا بالكدفو بكوري. اوكي وياهي وحوغا بنا مركات كدفتو وحوغا مركا I've already had some ونيو مرهربا قاربانا نقصو عبي. I've already had مرهربا وانسو قاتي some قدر. have a banana حبد موسى كدفو so I've already had one. I've already had one مرهربا مدى سو قاتي عندي بانكا سو طورة. do usame ama u qabo oo u shaqee tan oo kale. ugu do this one usame ama uga shaqee in the same way silamida. have some beer waxoogaa biira ku dhufo. Maanta I have already had some. I've already had waxaan soo qaatay some qadar. have an apple xabad tufaaxa ku dhufo. maanta markaa I have already had one. wixii tirsamay one baad gelinaysaa wixii kalena shan baad gelinaysaa. Okay. have a beach xabad cambaruuda ku dhufo. maanta I have already had one. mar hore mid baan soo cunay. have some milk waxoogaa canaacad maxaad oranaysaa markaas I have already had some qadar baan soo cabay. have a glass of water bal koob biyaa ku dhufo waaye maxaad oranaysaa markaas I have already had one. mid hal glass baan soo cabay. have a biscuit xabad biskuda ku dhufo. I have already had one. mid baan kusoo dhuftay mar horeba. have some cheese waxoogaa burcadka bahalka la idhaaga qaado soo leedahay I have already had some. mar horeba qadar baan soo qaatay ayuu noqonaya markaas. Okay waa tahay layliskii 10 kaafisteetanaadna halkaas inoogu dhamaaday. waxaynu u gudbi doonaa haddii ay baraali ka noqdo 10 ayaynu u gudbaynaa oo lesson 85 10 waa yahay
lesson 85 وعين عشرك شنية سجات lesson 85 عشرك شنية سجات اوكي وعين dialogue ومحادثة between دحمرتي Ken and George Ken and George they are talking about films waxay ka hadlayaan filimada sinimoogii ma tagtay haa maxaa ka socday waxaasa ka socday ma jeclaysatay ma tegaysaa caawo waxyaabaha noocaasa ayay isweydiinayaan waxaana la isticmaalayaa tenniska aynu imika baranaynay ee aynu ku soo sheegnay present perfect tennis present perfect tennis ayaa la isticmaalayaa waxaa laga yaabaa biinta meesha ku taalla halkay ka timi inaad istiraahdo kelmadda la yidhaha b waa ahaw markaad leedahay wuu yahay ama waan ahay adigu an baad isticmaalaysaa isna he iyo she iyo it baa qaadanaya arna we iyo you iyo they haddii baas laga dhigo I was bay waxa la am iyo is was bay noqonaysaa okay and arna were bay noqonaysaa marka baas participle laga dhigo ama tenniskan sida loo sameeyo marka la isticmaalayo been baa la isticmaalaya been oo kelmadda be un ka timi marka George ayaa wuxuu weydiiyay Ken hello Ken nabaday Ken ba markaa yidhi hello George nabaday George okay George waxa uu ku yidhi have you just been to the cinema war sinimooga ma aaday sinimooga ma tagtay ma soo eegtayba have you just been to the cinema sinimooga ma tagtay yes I have buu yidhi markaas waan tegey marka George waxa uu leeyahay Watson maxaa ka socda Watson maxaa ka socda war sinimooga tagtiga maxaa ka socda buu yidhi Watson maxaa ka socda waxay ka dhigan tahay what's going on maxaa ka socda marka Watson baa ka socan ayaa ka fudud Watson maxaa ka socda what is on maxaa ka socda dadna Kemba wuxuu yidhi Paris in the spring Paris filimka la yiraahdo Paris in the spring Paris oo gugi ku jirta Paris oo gugi ku jirta xilligii guga George orgade oh I have already seen it wani mar hore waan daawaday I've already seen it mar hore waan daawaday I've already seen it mar hore waan daawaday I saw it waxaan ka daawaday on a BBC television program barnaamij televisionka ama idaacadda la iska arkay BBC ka baxay last year sanadkii hore it is an old film waa film qadiima it's an old film waa film qadiima okay but it's very good but it is lakin hase yeeshee but lakin ama hase yeeshee it's very good waa film fiican kan baaydi Paris is a beautiful city Paris waa magaalo qurux badan Paris is a beautiful city waa magaalo qurux badan George markaas I have never been there wani abid kee ma tagin haddii qurux badnaan lahayd iyo haddii foolx maan lahayd ba anigu abid ma tagin buuri I have never been there abid kee ma tagin have you ever been adigu weligaa ma tagtay there halka kenkeno yes I have hallahi waa tagay I was there waxaan halkaa joogay in April bishii April George markaa uu la yaabo wuxuu yidhi war Paris in the spring talo maxaa looga jeedaa Paris in the spring eedaas waxay ka dhigantay what does it mean macnaheedu waa maxay Paris in the spring dabadna Kemba uu jawaabo wuxuu yidhi it was spring warniyo xilligii gugay ahayd and it was spring gugay ahayd ama xilligii guga ayay ahayd but the weather was awful laakiin hawadu waxay ahayd terrible mid aad u xun bay ahayd but the weather laakiin jawigu was wuxuu ahaa awful mid fool xun buu ahaa oo aad u liita but the weather was awful mid aad u liitay ahayd okay it rained all the time niyo roobun baa da'ayay it rained roob baa da'ayay all the time markasta London baa markaa hadii jeer roobku ku badan yahay saaxiibkii George baa ku yidhi oh just like dear old London wallahi waa London tii nagu dheerayd oo kale ee qalbigeena ku dheerayd ee qadiimka ahayd just like dear old London si London tii nagu dheerayd oo kale ayaa bay u muuqataa buudi okay waayahay have you just been to the cinema war sinimooga ma tagtay dadna wuxuu yes I have ha waan tagay wuxuu Watson maxaa ka socda Watson maxaa ka socda markaas Paris in the spring Paris oo gugi ku jirta oh
I've already seen it. When you are more daawaday, I saw it waxaan ka daawaday on a BBC television program. barnaamij idaacadda BBC la iska arka ka socday last year sanadkii hore. waxay ka dhigan tahay BBC hadaynu akhrino waa British Broadcasting Corporation. وعن هيئة الإذاعة البريطانية. هيئة الإذاعة البريطانية أي كلمة هاي. It is an old film. وفيلم قديمة. But it's very good. لكن أدبو في عينها. كم مركز Paris is a beautiful city. وباريس هو مقروح بدن يرت. ومقالة قروح بدن. شو جواب الله يا وحيد I have never been there. ونيوانو أبد كلمة وحي نقول يبا. I have never been there. أبد كلمة تجين. waxay noqon lahaydba have you ever been adigu weligaa ma aaday deer halkaa can by yes I have mar baan aaday I was there waxaan halkaa ku sugnaa in April bishii April marka uu garan waayay Paris in the spring waxa looga jeedo wuxuu yidhi Paris in the spring what does it mean macnaheedu waa maxay Paris in the spring so it was spring xilligii guga ayay ahayd but the weather laakiin jawigu was awful waxa mid liito oo xun it rained roob baa daayay all the time markasta galada roobka aad iyo jeer way nacabtay way dhulkooda waa qaboobe aad buu qabooyay dhulkooda had iyo jeer but George Barry just like dear old London wallahi London tii hore ay nagu dheereed oo kale ayaa bad moodaa London tii nagu weyneyd ee qulubteena ku dheereyd ayaa bad moodaa buud way wal lesson 85 casharka 5 bay ahayd halkaas ayuu inoogu dhammaaday lesson 85 casharkii 5 halkaas ayuu inoogu dhammaaday waayahay aynu sii wadno markaas waxaynu u gudbaynaa casharka 6 lesson 86 waxa ciwaankeenu yahay what have you done war maxaad hadda uun samaysay what have you done maxaad samaysay marka sawirka koowaad wuxuu leeyahay I have just aired the room haddun baan qolka neecawda ama hawada u sii daayay kana waxa uu leeyahay I have just cleaned hadda ayuun baan nadiifiyey the car baabuurkii kana wuxuu leeyahay I have just opened haddun baan furay the door albaabkii kana wuxuu leeyahay I have just sharpened haddaan afeeyey my pencil qalin pencilkaygii kana waxa uu leeyahay I have just turned on hadda ayaan daaray ama aan shiday the televisionkii kana wuxuu leeyahay we have just listened waxaanu dhageysanay to the news warkii we have just boiled hadda ayuun baanu karinay an egg xabadeeda we have just boiled hadda ayaanu karinay an egg xabadeeda okay we have just answered the questions we have just answered the questions haddun baanu su'aali ka jawaabnay we have just emptied hadda ayaanu faaruqinay the basket koleygii we have just asked the teacher so many questions haddaanu macallinka su'aalinay su'aalo badan we have just typed hadda ayaanu garaacnay letters waraaqihii we have just washed haddaanu maydhnay the dishes weelkii we have just walked haddaanu u soconay to the bus station anaa meeshii basku istaagayay we have just painted the room haddaanu qolkii rinjeynay we have just dusted haddaan boodhka ka afuufay the dressing table tawleedkii dhammaan ficilada halkaa ku qoran waxaad u qadimaysaa have ama has oo waxaad leedahay she has aired I have cleaned she has opened saas oo kale ama he has sharpened she iyo it iyo he waxa raacaya has I iyo we iyo you-na waxa raacaya has inta kalena has baa raacaysa ficilkuna sidiisu baaqa ku aanaya I have aired one hawadan u furay I have cleaned one nadiifiyey I have opened one furay I have sharpened one fiiqay ama waan qoray waan afeeyey I have washed one maydhay I have walked waan u socday I have typed waan garaacay I have asked waan su'aalay I have painted the room qolkii baan rinjeeyey I have dusted the dressing table tawleedkii ayaan boodhka ka afuufay
dhammaantood sidaasay ahaanayaan have iyo has un baana hormaraya iyo pronounkii ama damiirkii faacilka ahaa ama subject pronoun baa la odhanayaa waa I iyo we iyo you iyo they iyo he iyo she iyo it oo pronouns kala idhaahdo ama personal pronouns magacyaalada shakhsiga sheegaya oo faacil noqonaya marna mafcuul noqonaya waaye exercise-ka haddaynu u gudubno look at these two sentences labadan weerood ama labadan jumladood balu fiirsa buu ku leeyahay she has already aired qolkii mar horeba hawada ayay u furtay the room qolkii marka she aired it waxay u furtay this morning saaka marka in which of these sentences keebaa weedhahan soo socda in which keebaa of these sentences weedhahan ka mid can we put ayaynu gelin karaynaa has kelmadda has bay dhaad marka has waxay raacaysaa present perfectness-kii aynu ka hadlaynay haddaad aragta markaad darfu samaan cayiman ama article of time cayiman oo halkaa maray falkaas wuxuu noqonayaa markay labadan kuu joogsato present perfectness iyo simple past tense markay kuu joogsato haddaad article of time aragto article of time-ka rasmiga ah wuxuu daba dhacayaa simple past ka kale has buu qaadanaya marka ka ugu horeysa waxaa she has just boiled hadda ayuunbay karisay an egg bed she boiled it waxay karisay a minute ago marka a minute ago wuxuuna farayaa inuu falkaasi baaska baaqi ku ahaanayo oo aanay has raacin tani waxa weeye she has never been to Yugoslavia weligeed Yugoslavia may qaban but laakiin he was there in 1966 but laakiin he isagu was there halkaasuu joogay in 1966 de waqti baa la cayimay article of time-kii baa cayiman waa definite haddaad markaa definite time aragto waqti mucayin oo go-an waxaa la isticmaalayaa simple past otherwise haddii kalena waxaa la isticmaalayaa present perfect tense haddaad already aragto haddaad just aragto ereyada noocaas haddaad aragto waxaa la isticmaalayaa present perfect tense he has already painted that bookcase he has already painted mar horeba uu rinjeeyey that bookcase qaanada bugaagta he painted it waxaa u rinjeeyey a week ago weegiina dhaafay she has emptied way faaruqisay the basket kolaygii this morning saaka this morning way cayiman tahay wuxuu she has just dusted the sideboard she has just dusted hadduunbay boodhka ka tuntay the sideboard kabadhkii gidaarka ama kabadh gidaarkii guryaha ingiriiska ayaa inta badan lahaa waa yahay marka present perfect tense-ku wuxuu inoo sheegayaa baan ku yidhi wax hadda dhammaaday oo raadkii uu ka tegay qoyan yahay something that has just finished but laakiin it is effects raadkii ama saamayntii are still remaining ay weli baaqi yihiin ayaa la odhanayaa ama an action ficil ama hawl that has started soo bilaabantay sometime ago beri hore and still continuing welina socota okay waxaa ka mid ah ingiriiska oo kale ay dad badani ku wareereen 5 sano waxaa soo dhiganayeen ilaa haddana ay dhiganayaan ee aanay guushana ka gaadhin waa kaas oo kale marka they have been learning ama they have learned English since 1972 ilaa 1972 way soo baranayeen and up to now they are learning English ilaa haddana way baranayaan bay ka dhigantay okay waa yahay halka 10ka 8 86 waa 86 ciwaankiisu waa what have you done maxaad iminku samaysay dhantaasi waxay ka timi do waxaan la yiraahdaa falku markuu sidaa yiraahdo past participle waa marka simple past-ka laga tago simple past-ka marka laga tago waa yahay aynu ka gudubno markaas oo aynu gudubno lesson 87 10ka 87aad oo ku yaala on page 87 bogga 87 ama 78 waa yahay ninbaa markaa garage gaarigiisa soo dhigay makaanigu u geeyey makaanigu waa yani isku day inuu sameeyo laakiin wuxuu manaa ogaaday inaan baabuurka waxba laga qaban karin ninka baabuurka lahaa gabadhiisa
ayaa duqad baan gaadhsiisay macnaha sheekadu intaasay ka hadlaysaa sheekada muxaadasada meesha ku taallaa intaasay ka hadlaysaa let me tell you bal aan kuu sheega marka ismaxli aan kuu sheego Mr. Wood baa la ninka baabuurka lahaa marka baabuurkii intuu garashkii geeyey ayaa uu weydiinayaa attendant waxa la odhanayaa ninkii xafiiska joogay sideenan maaha jantaan rogan sideenan geerashada macnaha jantaan rogan meel walba geerashka laga dhigtay ee wadadii laamidii geerash laga dhigtay maahe macnaha geerash habaysan oo xafiis leh oo qofka xafiis loogu tagayo weeye makaaniguna dhar gaar ah xidhan yahay oo macnaha la kala garanayo qofkii shaqaale ahaa iyo qofkii xafiiska haystay iyo mulkiilihii la kala garanayo weeye laakiin inaga waa jantaan rogan Mr. Wood ayaa la yiraahdaa markaa Mr. Wood waxa uu leeyahay is my car ready yet warniyo baabuurkaygi tolo diyaar ma yahay is my car ready yet baabuurkaygi diyaar ma yahay buuri is my car ready yet baabuurkaygi tolo diyaar ma yahay baabuurka waa ninkaasi kama waraya attendant waa xafiis joogihii attendant waa xafiis jooge wuxuu yidhi I don't know sir wallahi la acrif ma garanayo anigu I don't know ما قرني سير سيدي لا أعرف يا سيدي بوش What is the license number of your car? What is محي the license number license number of your car باور كابو Mr. Wood بايدي it's وحوي it is وحوي LFZ 312 G بوش Attendant حفيز شو يحولي When did you bring it? كورماد نو كنتي to us anak when did you bring it kormaad noo keentay to us anak dadna wuxuu yidhi I brought waxaan keenay it iyadoo baabuurkiiya here halkan waxaan keenay 3 days ago 3 maalmood ka hor I brought waxaan keenay it baabuurka here halkan 3 days ago 3 maalmood ka hor attendant xafiis jooge wuxuu yidhi yes ha I remember now wallahi haddaan xasuustay buuri I remember now hadda ayuun baan xasuustay Mr. Wood wuxuu leeyahay markaas have your mechanics oo talow nimankii makaaniga ku ahaa ama baabuurta sameynayay finishid ma dhameeyay yet wali have your mechanics miyay makaaniintaadii finishid dhameeyay yet wali attendant waa xafiis joogi baa yidhi markaas no maya they are still working on it way ka shaqeynayaan wali they are still working on it way ka shaqeynayaan let us go into the garage haya nadkhul aan galno fi daakhilka aan galno let us go into aan galno ina mari aan galno the garage-ka and have a look at it waaynu daymo ka soo qaadano and have aan soo qaadano a look daymo ama eegmo aad id xaggeeda ah attendant wuxuu yidhi markaa isn't that your car baabuurkaagi kaa maahino kaa miyaanu ahayn buuri isn't that kaasi maaha miya your car baabuurkaagi isn't that your car kaasi baabuurkaagi miyaanu ahayn marka wuxuu leeyahay well it was my car wallahi kaanad sayaarati buuri baabuurkaygu waa uu xaqiraya markaasoo de meesha in baaba ku dhacay baabuurkii ayuu xusayaa dadna wuxuu yidhi it was my car baabuurkaygu waa ahaan jiray buuri attendant wuxuu leeyahay markaas idan your wife oo miyaanay xaaskaagu have a crash duqad gaadhsiin crash waa xudaam anaa burbur oo kale miyaanay gabadhaadu gaadhsiin buu leeyahay marka haddii la leeyahay baabuur burburay waa car crash wuxuu ku dhintay qofkaasi car crash baabuur yacni burburay ama duqadi ku dhacday ama waxaweyaan car accident buu ku dhintay haddii diyaaradda wax la burburto waxaa la odhanayaa air crash buu ku dhintay okay marka wuxuu didn't miyaanay your wife xaaskaagu have a crash duqad gaadhsiin so that's right that is right buuri waa sax taasi she drove it into waxay gelisay saaqad fii yani waxay gelisay a lamp post gudahan dhaadheera laydhka she drove it into waxay ku dhufatay ama ay duqaysay ama ay gelisay a lamp post bito ama birlayd oo kale okay wuxuu yidhi markaas can your mechanics talo makaaniintaadu ma karayaan repair it
inay hagaajiyaan. Can your mechanics repair it? Tolo ma repair garayn karayaan salaaxintaadu dadka wax hagaajinaya ma hagaajin karayaan buu yidhi. wuxuu yidhi attendant-kii well طيب buu yidhi. Okay, they are trying to repair it, sir. horta waa isku dayayaan bal inay sameeyaan. They are trying to repair it, sir. hadda horta way isku dayayaan inay sameeyaan. But to tell you the truth, laakiin aan runta kuu sheeganiyo haddaan runta kuu sheego you need a new car. baabuur cusub baad u baahantay buu yidhi. Okay, but to tell you the truth, laakiin haddaan runta kuu sheego you need waxaad u baahan tahay a new car, baabuur cusub. They are trying to repair it, sir. horta runtii way isku dayaan sayidii buu yidhi. But to tell you the truth, laakiin haddaan runta kuu sheego buu yidhi you need waxaad u baahan tahay a new car, baabuur cusub. Okay, way waxaynu ka fahmaynaa markaas yani garash baad baabuurkaagii dhigtay. What do you have to say? maxaad odhan lahayd? baabuurkaygii kaama yahay, makaanigii ma sameeyey, waxyaabahaas sidaad u odhan lahayd ayaynu ka faa'iidaynaa casharkeenna. waaye maxaa ku dhacay baabuurkaaga? waxaasaa ku dhacay, gabadhaadu sidaa ma tidhi, kida oo kida. ereyada noocaasoo kalea ayaynu ka baranaynaa. Okay, attendant waxaa la odhanayaa waa xafiis jooge, qofka xafiiska jooga. waayo garashadoodu ma aha sideenoo kale. jaantaa rabanoo la iska geli maayo, baabuurka meel kasta la dhigi maayo. xafiis baa la marayaa, waraaqaa la goosanayaa, makaanigu dress buu leeyahay, xafiis jooguhu dress buu leeyahay. protocol dhan baa ka jira markaas. protocol dhan ayaa ka jira. Okay, inagu gorayno marka akhlaaqiyaadkii kusoo noqon doono ma garanayno. dad burburay sida loo dhisaa way adag tahay, laakiin daara burburay sida loo dhisaa waa wax sahlan. dadku waxay u baahan yihiin runtii waqtigan xaadirkeenu ku jirno training bay u baahan yihiin. training ayay u baahan yihiin. way markaa xalqadeennii 6 haddii barali ka noqdo halkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. casharka 87 ayay noogu joogaysaa. waa macallin nuur oo idinla markaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.